السلام الله عليكم أصحابتي ذا maanta waa maalintii aan u baahnaa saraakiisha waliba dadka reer commentiga ah ee fikradaha qaaliga ah commentiga ku cabira saddex arin oo xal u baahan oo ku saabsan fanaanada ama gabadha Xafso Xubbi ayaan dul istaagi doonaa haddii aan ugu cusubtahay subscribe-taada waa dhiirigelin like-taada waa codsi commentigana fikirkaaga nagu waasaa kusoo dhawaada barnaamijka faahfaahsan marka koowaad waxaan idinka codsanayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee muuqaalkan uu soo gaaray wiilal iyo gabdhaba in si naxariis leh oo kale iyo laab leh gabadhan walaashiina ugu soo duceysaan maxaa yeelay Ilaahay wuxuu yiri ud'uuni astajib lakum macnaha i weydiista aan idin aqbalay waxa laga yaabaa qof hadda i daawanaya oo idinkeedii kamid ah in ducadiisa ay maqbuul tahay oo gabadhaas ducadiisa ay ku faa'iido marka hal mar inuu Ilaahay caafimaad taama walaashin uu siiyo horta aan u soo duceyno waa tahay muuqaalkeeda kuma dheereenayo waa laga soo falanqooday warbixin waa laga soo bixiyay laakiin waxaan rabaa inta muuqaaladaas socdeen indheen iyo xog raadin aan sameynayay saddex arrimood oo xal u baahan inaan halkaan idin kula wadaago muuqaalkan hala gaarsiiyo gabadha familkeeda arinta koowaad ee xalka u baahan waxay tahay muuqaalka markii aad daawanaysid gabadhan muuqaalkeeda waxaan xataa aan sameyn rabo niinteeda ku jiro xataa waa sameynaysiin sicir loo shanaadtiin ha waa inay sixteen artiin quruxdeeda iyo qorlaadiin waxa ay sheegaysaa ama ay ka hadlaysaa sixiryaal sixiroolayaal ayaatiin waa la sixir rabaa waa bointiga koowaad waa bointigaas qofka marka la sixiro waa qof qataaran bointigaas fa ugu dhageysta haddii bointigan uu sax yahayna wasiir qodobka koowaad saas waa kugu raacay ama qodobka koowaad wasiir fikirkaas fikir ka duwan ayaa wataa waa saa iyo saa please waa codsi aragtida waa muhiim commentiga qofka marka uu qataaran yahay qofkii sixirina wuu yaqaanaa in uu sixiran yahay oo qataaran yahayna qofkaas afkiisa lagama maqlo mana sheegi karo qofkii sixiray arrimo sixir ku saabsanna ma soo hadal qaado muuqaalo waa dhaweyd hawada soo galay dhankan shabeelooyinka gabar lagu haystay oo 4 sano waxaan ku 4 da laga dhalay oo muddo 6 sano miya ku dhow haystay oo Muqdisho reerkeeda la naadinaya dad xasuusataan gabadha saas u soo taagneed kaliya xataa hadal afkeeda kama soo bixin way baaba'day wajigeeda dhubtay hada xasuustaan dad muuqaalkaas xasuustaan Facebook la wareejinay qofka markuu qataaran yahay qofkan waa qof qataaran markuu leeyahay waa qof sida uu qof ku fiirinaya hadaladiisa yar 100 kalmadood ama 10 kalmadood marka lagu dhaho hal mar buu hadlay wax sheegaa badanaa waxa sameey uu dhaqaaqaya wixii meesha uu fariisanaya halka istaag meesha uu istaagay ama qofka qataaran ama sixran sida aan ku naqaanay sidaas ahayd laga yaabaa dunya akhrisbaad baa joognaa xataa sixirka naftigiisa in update lagu sameeyo wax laga dhici kartaa marka gabadhan maadaama waa la sixiray sixiroolayaal ayaa tihiin waxyaalaha dadka Yurub jooga qurbaha jooga mushaki waxa la jira dadku inay sas la shakiyaan oo sixir in la daba joogo in ma taqaana waxyaalaha buufis la jira marka gabadhan aniga qodobka koowaad waxaan aaminsanahay in xaalad mentally ah wareerka meeshan yaal qurbuhu waa halis nolol adag baa taal qofka dumarka ay waliba day waa qof iska hooyo ah waa dareemaysaa xaalado fara badan hadii isaga daba yimaadaan in by mentally dhaawac soo gaara laga yaabaa marka gabadhan inta ay dhayso waa la sixiray sixirooliyaal ayaa tihiin dhar hal ii keeno waxaan aaminsanahay inay dhowdahay gabadhan oo maskaxiyan ay daawo ahaan u baahan tahay qof sixiran oo maqana joogay qof uu sixiran yahay waa macruuf way qofkaas waa la yaqaan intuu telefoonka soo qaado oo looga ka furo oo looga waliba Snapchat si tago oo muuqaal duubo inuu post gareeyo xogaha kulli aniga intaan aqaan way dhaaftay reer comment dadka fikirka cabirey fikradaha qaaliga cabiraan u deynaya marka maxaa ka saxa si maxaa ka khalada maxaalad mentally baad u aragtaa mise xaalad sixir baad u aragtaa qodobkaas weey qodobka labaad markuu yahay markii aan idin leeyahay iga raali hada marka aan idin leeyahay commentiga ama aragtidu waa muhiim inta meesha iska soo galo intaan iska hadlo inaan iska baxo wax macna ma soo kordhinayso waa in dood wadaag ay noqotaa waa in fikradaha waxa laga yaabaa gabadha familkeeda dad qaraabo la asxaabteed inay muuqaalkan ay daawadaan oo aragtida dadweynaha ay cabiraan oo xataa fikrada dhaxalgal ay ka helaan
that's why markaan kuu leeyahay waxaan isdhaafsano anna platformka waan ka hadlayaa anna commentiga ka hadalo xataa commentiga dhexdiisa in lagu kala duwanaado dooda ka dhacan baa dhici karta that's why markaan uu leeyahay dadkay daawanayo idinka idin qiimeynaya qodobka labaad ugu gud marka qodobka labaad wuxuu yahay gabadha fanaanad bay ahaan jirtay heesii soo saari jirtay horta ilaahay khatmada noo wanaajiyo wax qurux badan ma aha gabadhan xaaladda ay ku jiray jirtay rees 3 sano ka hor ay soo saartay oo haatif cabdi uu ka duubay 1.1 milyan baa daawatay kumee baa la dhahaa heestan oo kale gabadhan inay xaaladan ka soo bixi doonto in xaaladan mataqaana meesha ay nolosheeda ay kaga hari doonto ma ogin in nolosheeda ay la dhamaysan doonto ma ogin waxaan codsan lahaa youtuberada haatif cabdi uu gamid yahay oo kale muuqaalada badan ka duubay waxaan ka codsan lahaa in muuqaaladaas bal bareefad la geliyo haddii hawada aan laga saari karin at least in bareefad la geliyo sababtoo ah qofkan nolosha hadeer meeshuu ka taagan yahay waa arki karnaa aniga naftirkeena beri waa nagu imaan kartaa waa qoraal rabbi marka bal muuqaaladaas haddaan hawada laga saari karayn oo lacag aan la qiimeyneyn oo lacag aan la fiirinayn muuqaaladaas aan bareefad hala geliyo ama hawada laga saaro sida idin la saxan tahay mise khalad baad u aragtaan pointiga labaadna reer commenti ayaan u daynayaa pointiga saddexaad wuxuu yahay oo aniga aad mataqaanaa maskaxdeeda ugu soo laalaabtay gabadhan mudday familkeeda hayeen sida xogtaan ku hayo gabadhan markay familkeeda hayn waayeen kadib ayay meesha haddeer joogta ay keeneen familka gabadhaas hadday daawanayaan arrintan waa muhiim sababtoo ah muuqaalada markay aad daawatid waxaad dareemaysaa in meesha dadka mentalka ah ay gabadhan joogto waa sidaan qiyaasaysa ma hubo dayac marka inuu meeshaas ku jiraa dareemaysaa sidee ku dhici kartaa qof meel mental ah la keenay ama meel si gaara mataqaana loogu baxnaaneynaya la keenay in gabadhaas ay intay telephone jaanis u hesho ay muuqaal iska duubto ay baraha bulshada ku baahayso hadduusan dayac meeshaas ka jirin se gabadhan waqti telephone loo fasixi karo oo nafsadeeda control karto waxay gudbinayso iyo waxa aysan gudbinayn ay u kala saaran yihiin ma joogtaa waa su'aal isweydiin mudan marka gabadhaas haddii familka la joogtana waxaan ka dareemayaa inuu meesha dayac ka jiro haddii meel khaas oo loogu talagalay ay joogto waxaan dareemayaa in meeshaas uu dayac ka jiro marka familka gabadha waxaan kula dardaarmayaa oo aniga iga dardaarana in gabadhaas meesha ay ku jirto bal xaaladeeda sida ay tahay jawiga guud dib loogu laabto waayo gabadhan hadeer arrintaasi social media soo gelisay beri kamaan ayadoo qaawan oo muluqa ama iyadoo cawradeedii ama iyadoo waxsi ka yihiin ama arrimo bareefada oo ay dad ay wadaageen hadday baraha bulshada ugu soo deyso soo ceeb kale kasii dhici mayso soo lagama yaabo in gabadha fanaanad biheed bulshada ku dhex jirtay dad bay contact lahaayeen waxyaalo bareefad ah ayada nafsadeeda waxyaalo u bareefad ah inay baraha bulshada soo geliso oo ceeb halka ka dhacdo soo ma dhici karto meel fog wax laga fiiriyaa familka gabadha muuqaalkan gaarsiiyay waxaan kula dardaarmayaa war gabadhaas meesha ay ku jirto iyo xaaladda ay ku jirto xaalad qof bilaadan telefoon loogu fasaxo ma ahayne meeshaas dib ha loogu laabto dayac baan dareemayaa maanta haddii tani dhacday berri wixii dhici karana waa su'aal isweydiin mudane ogaada familka gabadhan leh ugu dambeyn waxaan kusoo koobayaa aniga arrintan kulli intii aan sixir ka maqlayay aniga ilama aha gabadhan xaalad mentally baa gaartay maskaxiyana haddii la daweeyana inay laamigeedii jidkeedii kusoo laaban kartaan aaminsana ilaahayna waxaa uga baryayaa caafimaad taama iyadoo beri si farxad noola joogtana aragno haddii kaloo xaalado kale iyo sixiro iyo waxyaala la iscabsiyaa jiray haddii jirtana dadkaan aan la joogin haddii wax ka qaban karaan ha ka qabtaan haddii kalena wadankii sixir fur iyo waxbaa jiray gabadha wadankii tii la geeyo bal nidaamyo iyo wax loo kala baalkeeyo umaleyn maayo kolley qof xaalad mental ku jiro intii diyaarad la saar la safrin kareen ilaahay sidii roon baan gabadhaas horta uga baryayaa si niyadaan ugu duceynayaa qodobka labaadna waxaan ka codsan lahaa youtuberada saa hore idigu soo sheegay in bal heesaas la hakiyo hawada laga saaro waa gabadha ayada teedaystaa dambi kale in dusha looga sii daro xogaha
xaalad wanaagsan oo ma arko haddiise gabadhan lacagta yarta heesaan ay sameynayaan ay idinkala qiimo badan tahay muuqaaladiin waa iska sii deysan kartaan hawadu ay kugu jiri karaan waa iga talay tusaalo cidna weerar ku miyi qodobka saddexaadna waxaan kusoo koobayaa war gabadhaas meesha ay ku jirto dayac baan ka dareemayaa muuqaaladan haddii maanta hawada soo galeen beri waxyaalo kale hawada soo geli kara ha laga digtoonaado intaasaan kusoo gabagabeynayaa fikirkii aan ku darsanayay xaaladda ku timid walaasheen xafso xubbi sida u taqaanaan dabcan social media ama fanaan aho ama wariye aho ama youtuber aho ama tiktoker aho waxaa walaal lagu yahay waa dhalinyarada media ku wada jira intaasaan garabkeedaan taaganahay waan usoo duceynayaa saa commentiga idinkaga codsanaya ducadaas inaad u wada duceysaan baa idinkaga codsanayaa barnaamijkii aan ku cabirayay aragtideeda ku aadan dhacdada gabadhaas ku timid intaasaan kusoo gabagabeynayaa haddii aan ugu cusub tahay subscribe-taada waa dhiirigelin like-taada waa codsi commentigana fikirkaagana wada wadaagsaa intaan kulmi doono barnaamij ka lamid ah oo wasiirka arrimaha gudaha maamulka Soomaaliya social media leh ciao ciao